Maria Bello hoskaga waxaan u beegay sidii bildhalato karo igu soo birqa shan arrin oo dadka aysan ogeyn ayaa laga diiwaan geliyay guurka boqoradda Isteelka iyo sidoo kale Heykal. Calafku waa cajiib, qofkaad ku taamayso waad heshana waa aqbal Alle kugu guuleeyay. Sida aan la wada socono waxaa habeenkii xalay ahaa qabsoontay xafladda arooska lamaanaha Maria iyo sidoo kale Heykal. Munaasabadooda arooska waxay ahayd mid aan loo kala harin qiimaheeda, balse shan dhacdo oo cajiib ah ayaa laga diiwaan geliyay guurka Heykal iyo sidoo kale Maria. Dhacdada koowaad waxay ahayd hoolka xafladda ay ka dhacisay oo ay xaadir ku ahayd boqoradda Isteelka oo ahayd aroosada ayaa waxaa hoolka buux dhaafiyay hadiyado qiimo badnaa, kuwaas oo isugu jiray dahab, dhar, lacago iyo sidoo kale hadiyado kale oo qiimo badnaa oo ay bixinayeen reerka wiilka iyo sidoo kale saaxiibo iyada agteeda qaali ku ahaa. Hoolka waxa uu ahaa mid la waayay meel la kala istaago, waxaana ay dadka ku mideysnaayeen in waqtigooda ay ku bixiyaan midowga lamaanahan. Munaasabadaha waxay ka kala dhacayeen Muqdisho iyo sidoo kale Hargeysa, waxaana ay dadka lamaanahan ku tilmaamayeen jaceylkii dhexmara Hargeysa iyo sidoo kale Muqdisho. Hadiyadaha gabadha dhinaceeda la dhigayay waxay ahaayeen kuwo badan waan la soo koobi karin. Marna waa ay dhoola cadeynaysa Maria, marna waxay u mahadcelinaysa dadka sida wanaagsan ay kaga soo qayb galeen xafladeeda guurka. Dhacdada labaad ayaa waxay ahayd in hoolka banaankiisa ay soo buux dhaafiyeen boqolaal qofood, waxaana ay dadkaas qaar lahaayeen waxaa habbooneed in goob fagaaraha lagu qabto munaasabadda si dadka lamaanayaashan taageersan ay waqti ugu helaan ka qaybgalka xafladooda. Maadaama hoolka intii qof ee loogu talagalay uu qaaday, waxaa dhanka kale banaanka hoolka tubnaa dad badan kuwaas uusan nasiibka u saacidin in hoolka gudihiisa ay soo galaan. Muuqaal laga soo duubay banaanka hoolka oo ay xafladda ka dhacisay waxaa la arkayay tiradada oo buux dhaafiye banaanka hoolka, kuwaasoo jeclaa in farxadda lamaanahan ay la qaybsadaan. Dadka ayaa lagu wargelinayay in hoolka uu buuxo, sidaa daraaddeedna laga guddoomay hambaliyada qiimaha badan oo ay sideen. Dhacdada saddexaad ee laga diiwaan geliyay xafladdan arooska ee Heykal iyo Maria ayaa waxay ahayd in hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose in iyadoo qiireysan muuqaal ay iska soo duubtay ay fariin hambaliya ay ugu soo dirtay Heykal iyo sidoo kale Maria. Hooyadan ayaa tiri, waan idin jeclahay, waxaan idin ahaa muddo badan hooyo idin taageersan isla markaana jecleed midowgiina. Xaqiiqdii si aan farxadda idinla qaybsado waxaan taleefankayga ku shubtay lacag si daata internet aan u helo, isla markaana aan muuqaalada xafladiina kala socda baraha bulshada. Hadalka hooyadan waxa uu qiiro geliyay dad badan, waxaana ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay maqasho in lamaanihii ay muddada badan taageeraysay inay midoobaan. waxaan ka salaamayaa Maria Abshir Maxamed iyo saygeeda Heykal Maxamed Muuse. waxaan deganahay magaalada Kismaayo. arooskaada hambaliyaan ku leeyahay, aadan ku salaamaa maamoy. ani Kismaayo deganahay, maasha Allah tabarakallah. arooskaada aadan ugu farxay, waa idin taageeraa labadiina. maantii waxaa laga yaabaa $2 ama $4 aan macnaha ku hadal leh inaan si aan idin daawado aan ugu shubo, marka iga dhamaatay waa ku shubaa. alaas waxaa waay dhiirigelin iyo inaan macnaha idin daawado, aadaan ni jeclahay, waan idinku faraxsanahay. Dhacdada afraad ee la diiwaan geliyay ayaa waxay ahayd in gabar Soomaaliyeed ay buraanbur qiimo badan ay lamaanahan hawada u marisay, isla markaana buraanburku ahaa mid cajiib ah, sidoo kalena ay ku cabiraysay jaceylka guuleystay ee lamaanahan Heykal iyo sidoo kale boqoradda Isteelka iyo reerka u dhismay labadooda. Maria Bello hoskaga waxaan u beegay sidii bildhalato karo igu soo birqa bidhantaya quruxda bitihibaadu leedii belay mudulood hiraabad ku beegantahay boqoradii reer abgahalay bahdaad u tahay wax budhaan abgahale waaweynki waa kodhay siba galmaaxyoon isgaryaaqanaadi ilowwe gobtii i ceeli cumar ya xasan gaabka laga cabsado ana cadbaa igu kahayaane lagu macuno. Dhacdada shanaad ayaa waxay ahayd in martidii hoolka xafladda ku sugneed ay badankooda gacanta ku siteen calanka Somaliland, taasoo ka dhigneed in wiilka gabadha hantinayay uu ka soo jeeday deegaanada Somaliland.
dhanka kale midowga lamaanahan waxaa loo qaaday heese qaas ahaa. Fanaanada Najmo Nashaad ayaa shiday arooska lamaanahan, heese kala duwan ayaa halkaas ka qaaday, waxaana ay mar qura ay bedeshay jawigii xafladda. Sacab iyo ciyaar ayaa mar qura isqabsaday hoolkii. Najmo Nashaad ayaa hore ugu ballan qaaday lamaanahan in xafladooda ay kasoo qaybgeli doonto isla markaana ay heese ka qaadi doonto, waxaana ay ka dhabeysay ballantaasi maadaama ay shiday arooska Heykal iyo sidoo kale Maria. Dhanka kale fanaaniintii shiday arooska waxaa ka mid ahaa Shaadi Sharaf iyo sidoo kale kuwa kaloo badnaa. Fanaaniinta sidoo kale goobta shiday waxaa ka mid ahayd Malyumaanka, waxaana goobta ay ka qaaday heese kala duwan. Sidoo kale waxaa goobta xaadir ku ahayd Igraan Caraale oo fanaanad Soomaaliyeed ah isla markaana in badan xagga fanka ku soo jirtay. Kani waxa uu ahaa aroos loo hagar baxay, baaxadda farxadda jirtana waxay ahayd mid aan la qiyaasi karin qiimaheeda. Hoolka farxadda ka jirtay waxay ahayd mid aan la saadaali karin xaalkiisa, maxaa yeelay qof kastoo hoolka ku sugnaa waa uu dhoola cadeynayay, waxaana farxadda uu la qaybsanayay lamaanahan. Hoolka xafladda ay ka dhacaysa xalay oo xaadir ay ku ahayd boqoradda isteelka. Hadiyadaha ay gudoomaysa marka laga tago waxaa jira boqolaal qofood oo salaan iyada ugu imaanayay. Dadka badi waxay u ahaayeen saaxiibo iyo sidoo kale walaalo, kuwa badan ayaa qiimeynayay isla markaana dareemaya farxaddeeda. Jacayl kasta oo guuleysta isla markaana qaada jidkiisa wanaagsan waxa uu noqdaa mid loo xiiso. Farxadda iyo sidoo kale reereynta gurigan dhisma hareysana waxay noqotay mid hadalhayntiisa si weyn loogu dareemay baraha bulshada. Qof kasta waa uu jecel yahay in jacaylka waqtiga badan kaga baxay iyo sidoo kale juhdiga uu ku bixiyay in uu noqdo jacaylkaasi mid guuleysta ugu dambeyntii. Hadda waa uu guuleystay jacaylka Maria iyo sidoo kale Heykal, waxay noqdeen lamaane nolosha midoobi doona. Waxay ka dhabeeyeen wadadii hadkeed ay soo qaadeen. Qof waliba dareenka farxadeed iyo sidoo kale wadajirka xiriirka ku dhehna waxa uu noqday mid ugu dambeyntii soo gaara halkii la rabay. Qof kastoo kasoo qaybgalay xafladooda waxa uu lahaa maasha Allah, waxa uu ahaa aroos wanaagsan. Waxa is helay laba qof oo isku qalma. Sidoo kale boqolaal qofood oo aysan u saamixin inay ka qaybgalaan arooska ayaa hambaliyo siyaabooyin kala duwan ugu baahinaya baraha bulshada. Way wanaagsan tahay in la dhiirigeliyo kuwa wanaagsan ee isdoortay isla markaana jidka wanaagsan qaaday. Kuwani waa kuwa ka dhabeeyay jacaylkooda oo muddo badan soo jiray. Dad badan waxay aaminsanaayeen in jacaylkan uusan guuleyso doonin isla markaana wax kasta ay noqon doonaan xiiso, laakiinse xaalka sidaas muusan noqon oo jacaylku waxa uu noqday mid guuleysta sidoo kalena qaada wadadii la rabay. waxyaabaha cajiibka ah ee jaceylka sidoo kale laga diiwaan geliyay waxaa qayb ka ahaa in wiilka aroosaya gabadhan oo lagu magacaabo Heykal uu in badan tilmaamay in boqoradda isteelka ay tahay qof wanaagsan, waxaana uu sheegay in xiriirkii wanaagsanaa iyo jaceylkii waqtiga uu ku bixiyo uu noqday mid guuleystay. waxa uu sheegay in imtixaan adag oo xagga nolosha uu u qaatay jaceylka, laakiinse imtixaankaas uu ku baasay isla markaana uu hantiyay qofkii u qalantay. guusha lamaanayaashan ay gaareen waxaa laga dareemay baraha bulshada. barta TikTok oo Soomaali badan ay isticmaalaan ayaa si weyn waxa u dhex wareegayay fiidiyowyada muuqaalo laga soo duubay xafladda arooskooda iyo sidoo kale meherkooda. barta Facebook iyo YouTube sidoo kale Snapchat-kana muusan ka marneen iyo sidoo kale Instagram-ka. kani waxa uu ahaa aroos hadalhayn badan watay isla markaana dadku badi ay dareemayeen inuu ahaa mid qiimo badan xambaarsan. fadlan mar waliba ku xirnow channelka Sharmaarka Media. lamaanahan guriga dhistayna ugu soo duceey in Ilaahay gurigooda uu ka dhigo mid khayr iyo sidoo kale wanaag badan xambaarsan. hambalyo ugu soo qor qaybta commentiga si ay u dareemaan mar waliba in hambalyo qiimo badan aynu la garab taagannahay.